السلام عليكم weligaa ma isweydiisay sideen ku ogaan karaa mawhibadayda waxa aan ku fiicanahay muuqaalkan wuxuu muhiim u yahay qof walboo danaynaya inuu ogaado waxa uu mawhibo u leeyahay gaar ahaan 15 sano ilaa 30 sano inta u dhaxaysa da'ahan mar walba oo aad yaraanta ku ogaato mawhibadaada waxaa badan fursada inaad kobciso mawhibadaas noloshaadana ay saameyn wanaagsan ku yeelato kelmadda hibo ama mawhibo waa af Soomaali saxa Soomaalidu way adeegsataa maadaama afka Soomaaliga iyo Carabiga ay wax badan wadaagaan qofkii isku yaqaan labadaba ayaa fahmi karo kelmadda mawhiba Carabi ahaan waxay ka imaaday ficilka wahaba wuu u hibeeyay wuu siiyay mawhibada ama hibada markii la qeexayo waxa loola jeedaa qof leh wax uu dadka kale uga duwan yahay fartana lagu tilmaamo in qofkaas uu leeyahay mawhibo sida codka naqshadaynta dhaqdhaqaaqa iyo xirfad dhinaca jirka sida kubadda cagta iyo wixii la mid ah sidoo kale hadalka kelmad jeedinta inuu hibo u leeyahay inuu dadka hortooda ka hadlo hadal aad u wanaagsan oo dadka soo jiidanayo qofka mawhibada leh wuxuu xaqiijiyaa guulo kala duwan waxaana u furma albaabo fursado kala duwan sidoo kale inta badan maanta markii mawhibo laga sheekaynayo waxaa la sheegay ciyaartoyda kubadda cagta oo raggaas malaayiinta iyo qusuurta degan maanta ay sanadyo yar ka hor ahaayeen rag aad sabool u ah laakiin mawhibadaas ay noloshooda 180 digri bedeshay ayna noqdeen dad kale siday kubadda u ciyaarayaan gambiska ay samaynayaan xarakaadka lugahooda waa arrin ku tusinayo in arrinkan uu yahay mawhibo dhab ah dad badan ayaa leh hibooyin kala duwan laakiin waxaa la isku dhaafay ogaanshiyaha mawhibadaas iyo kobcinteeda mawhibadu keligeed wax ma tarayso haddaanan la kobcinin la daryeelin laacibkaas kubadda ciyaaraya kan ugu xariifsan hadduuna hal isbuuc tababaranin mawhibadii hal bacaad lagu lisay ayay noqon waxba uma tarayso Thomas Edison ninkii korontada daaha ka qaaday ikhtiraacad badanna sameeyay ayaa la weydiiyay meesha uu ka keenay hibada oo arrimahan ku xaqiijiyay laakiin wuxuu ku jawaabay 99% daal iyo dhidid halka soo harayna hibo qodobadan soo socdo waxaan isku dayi doonaa inaan ku sheegno sida aad ku ogaan karto mawhibadaada ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta aanu galno gudaha barnaamijka si aad u ogaato mawhibadaada marka koobaad calaamadee waxa aad jeceshahay inaad qabato shayga aadan daalaynin markaad samaynayso markii mawhibo laga hadlayo waxa inta badan lagu tilmaamaa waxa uu qofku jecel yahay inuu qabto waxa uu raaxo dareemayo marka uu samaynayo xitaa hadduu daalan yahay waqti haynin uu isku dayayo samaynta arrinkan marka koobaad waxaad si mug leh u ogaataa waxa aad inta badan waqtigaada geliso waxa aad jeceshahay waxa ay yihiin ma inaad wax qortaa jeceshahay ma inaad hadashaa jeceshahay waxa aad jeceshahay bal xadid marka koobaad ma waxaad jeceshahay sidoo kale inaad kombiyuutarka waxyaabaha la xiriira mar walba aad ka shaqayso mawhibadu waa mid rabbaani tabcan laakiin ma ahan wax hal mar cirka ka soo dhacayo waa isu tag waxa uu qofku jecel yahay waxa uu qofku danaynayo lagu daray waqti markaan leenahay tusaale ahaan qofkan hibo ayuu u leeyahay kubadda cagta waa inuu maalmo badan waday ciyaaridda kubadda heer uu dareemo in uu ku fiican yahay arrinkan ma ahan hadduu subaxdii soo kacay in uu is arkay asagoo maaradoona ah arrinku saas ma ahan qodobkan waa mid aad iyo aad muhiim u ah ra'yiga dadka waana kan ugu muhiimsan hadduu maanta qof kugu dhaho codkaada wuu fiican yahay berina qof kale aad ka maqasho isla kelmaddaas mar walbana dhagahaada ku soo dhacayaan in aad leedahay cod fiican waxaad ogaataa in aad tahay qof leh mawhibo cod ah codkana tusaale ahaan keliya ayaan ugu soo qaadanay haddii markaad hadlayso kelmad jeedinayso dadku jecel yihiin hadalkaada lagaa dalbada inaad kelmad jeediso haddii ay noqoto iskuulka subaxdii qaacooyinka meel kastoo la fadhiyo waxaad ogaataa in aad hibo u leedahay hadlidda kelmad jeedinta sababtoo ah dadku waxay jeclaadeen qaabkaad u hadlayso ma soo gashay masjid maalin jamco ah kadibna ma aragtay dadka oo wada hurdo xilli khatiibku mimbarka saaran yahay hadlaayana
sidoo kale ma soo gashay masjid kale kadibna ma aragtay dadka oo feejigan si fiican u dhagaysanaya khatiibka afkiisana fiirinayo arrinku waa kan hore ma ahan khatiib hibo uma lahan waa qof warqad ka akhrinayo khudbadda canuga ugu yeeray dugsiga hoose dhigto arrinkan wuu samayn karaa in uu warqad qaado mimbarka fuulo kadibna uu akhriyo laakiin kuma tilmaami karo inuu khatiib yahay waa qof warqad wax ka akhrinayo arrinkan waa nooc ka mid ah runtii dulmiga in qof aanan hadli karin dhici karto inuu wax kale ku fiican yahay arrin kale mawhibo u leeyahay oo mimbarka masjidka jimco walba soo istaago dadkana masjidka nacsiiyo khudbad aanan wax micnaa lahayn dhinacay u socoto iyo meel ay ka socoto aanan la aqoonin dadku hurdaan halaaqoonayaan dembi ka weyn ma jiro in aad qof masjidka nacsiiso khudbadaadaas aadka u lidatay jeedinaysa darteed runtii arrinkan waa arrin u baahan in ilgooni lagu fiiriyo tusaale dhinac khudbadda la xiriirto soomaalida inta badan waqooyi koonfur bariya galbeed maxay u jecel yihiin kelmadda sheekh mustafa xaaji markuu hadlaayo oo youtube-ka aad ku arkayso 100,000 inay daawatay arrinku waa nin hibe ilaahay siiyey xoshana kelmadaha ku habboon waqti geliyeyna diyaarinta kelmadda uu jeedinayo yaqaanana waxa dadka soo jiidanaya iyo waxa ay dadka danaynayaan markaad dhagaysanayso waxaad si toos u dareemaysaa in uu waqti geliyey kelmadda uu jeedinayo sababtoo ah hibo mawhibo ayuu u leeyahay qofka markuu shayga uu hibada u leeyahay ku dhex jirana waqti ayuu geliyaa si fiican ayuu u xushaa taas ayaa sheekh mustafa ka dhigtay in ay soomaalida dhan jeclaato markuu hadlaayo inay dhagaystaan runtii waana nin ku dayasho mudan waa qof ku dayasho mudan qaabka u hadlay iyo ammaanada uu sida loogu talagalay u gudbinayo waxaan ula jeednaa dadku waa garsoore caadil ah inta badan markii dhinaca hibooyinka laga hadlaayo waxa ogaan karana inaad hibo leedahay waa dadka waad aragtaan barnaamijyada lagu magacaabo Got Talent ee dadku ku soo bandhigaan hibooyinkooda kadibna dadka meesha fadhiyo iyo garsoorayaashu ay ku raacaan ama ay diidaan ay xukmiyaan qofkan inuu arrinkan hibo u leeyahay in kale haddii ay dadku sacbiyaan la tafaaculaan waxay ka dhigan tahay inuu qofkan hibo u leeyahay arrinkaas ma jecli in aan naftayda ka hadlo ama aan tusaale u soo qaato naftayda laakiin haddii wax laga faa'iiday tijaabo aan soo maray maxaan u qarin inta aanan bilaabin youtube-ka waxaa dhagahayga ku soo dhici jiray mar walba codkaada wuu fiican yahay cumarow ee BBC maad aadid wax badan ayay dhagahayga soo gaari jireen kelmadahaas ilaa markii dambe aan ku qancay in dadku ayna been sheegaynin ilaa haddana alxamdulilah kommentiyada i soo gaaro sidaas ay leeyihiin waxaan ula jeedaa oo aan tusaale naftayda dhacdadaas isoo martay aan ugu soo qaatay haddii aad dadka ka maqasho ayagoo kule waxaas ayaad hibo u leedahay waxaad ogaataa in ayna been sheegaynin ilaa xad keliya lagaa rabo in aad hormariso mawhibadaas kuna dhaqaaqdo waxaad kalood ka taxadartaa dadka ku niyad jabinayo si feejigan u qiimee ra'yiga dadka gaar ahaan kuwa hoos kuu dhigayo laakiin waxaad ogaataa qof markuu ku dhow mawhibo ayaad leedahay arrinkan waad ku fiican tahay in 99% ay run tahay hana fakirin arrinkaas qodobadan degdeg ah isweydii waxaad isweydiisaa waa maxay waxa i farxad gelinayo markaan samaynayo waxa aad jeceshahay sidoo kale oo aad inta badan qabato waxaad kalood isweydiisaa waa maxay sifada aan uga duwanay dadka kale waxa kaa soocaya dadka kale qodobkan kale adiga keliya ayaa samayn karo ama adiga ayaa si fiican u samayn karo maxaa loola jeedaa wax walba oo aad si ka fiican sida dadka caadiga u sameeyaan aad u samaysa aad u qabato waxaa lagu tilmaami karaa in aad ku fiican tahay arrinkan markii hawl ama arrin gooni ah la qabanayo haddii ay dadku dhahaan hebel ama heblaaye aan u dayn arrinkan asaga ku fiican waxaad ogaataa shaygaas lagugu yeerayo in aad hibo u leedahay haddii ardayda saaxiibada ehelka markii la hadli rabo shir iyo wixii la mid ah la qabanayo haddii lagu soo hormariyo waxaad ogaataa in aad hibo u leedahay hadalka iyo jeedinta kelmad haddaad hormaraysa arrinkaana uu caalam kale kuu furaayo mawduuc walba oo ay dadku ku hormariyaan waxaad ogaataa in aad dadka kale uga fiican tahay taasoo ah in aad mawhibo u leedahay mawhibadu waa waxa aad danayso waa waxay dadku kugu tilmaamaan inaad ku fiican tahay
waxaana lagaaga baahan yahay haddii aad dareento inaad mawhibo leedahay in aad hormariso, in aad kobciso, subaxdii iyo galabtii aad waraabiso sidii geed la kobcinayo ilaa ay mawhibadaada ka weynaato. mawduuceena maanta intan ayuu ku egyahay. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.